ilo kuma baaqaayo mana ogolin in la dilo muslimiinta in la dilana waa xaraam dhiigooda iyo maalkooda ma banaano qof muslima in la dilo kuma baaqayo haddaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacada lagama soo deynaa waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhamayn warkaas in laga jarayo aaminsan waa ka jaraysiin ya dawladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra'iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alahaasaan ku baaqaayo haweenaydan ayaa si indhala'aan ah ugu jirtay safar ay ku baadigoobaysay saygeeda oo ah nin ajnabi ah oo lagu sheegay degmada Jilib sida ka muuqata hadalkeeda hadda marwo ayaa tahay saasaan filan insha Allah markii lagu soo qabanayo maxaa sameynaa gurigayga joogay maadaama marwo aad tahay xaaskii u dhaxaysay ya xaaskii u dhaxaysay xagii ku sugayay ma og meel ku sugayay Soomaali miya mise waa ajnabi Soomaali ma aha laakiin waa muslim mujaahid marka muslimada ka shaqo galashadiisa wadanka ku soo jeeda wallahi warkiisa anigu waxaan sheegay malaha laakiin waraad qaadina rabtiin waa Ethiopian sida la sheegay anigana oo ii sheegay laakiin ragaas waxay sheegaan wax la qaato malaha xeeladooda military kamid ma inay iska sheegaan qabiilkooda iyo magacooda saddexan oo sax ah laakiin waa Ethiopian ya Soomaali waa soo islaam waa nin muslim oo muhaajira Jilib baa u socday maxaa ka doonaysaa ninkayga u socday oo halka jooga meel uu joogo moogi laakiin marka tago ii imaan lahaa marin habaabinta Layla waxaad ka dheehanaysaa fikirka ay ka aaminsan tahay qaraxyada naftii halignimada ah ee ay al-shabaab ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed waxa uga gambahanahay waxay tahay nin mu'min ma badilaya anigu mu'miniin ma ahan dawladda ridada daaqoodku ma ahan kufaar baan ka aaminsanahay say mu'min ku noqonaa marka qofka mu'min markuu yaad ka aamini kartaa inaad disho ay dhigiisu xaraan ka tahay laakiin naftiisa iyo maalkiisa ay banaaba sasa aaminsana anigu baab qarax ina ka fadwado haday ugu qasabtana waxa ku waajibay dadkaas inay ka hijroodaan haday ka hijroo waayaanna ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta yawm qiyaamah asaga la soo saarayo waxay la dhintaan